soo dhawaada asxaabay waa soo koobida iyo falanqaynta filim taxane argagax qarsoodiya iyo weliba dhibaatayn ah waxaana lagu magacaabaa filimka magaciisa Jake. wiilkan waxa lagu magacaabaa Jay waxa uu ku nool yahay nolol adag waxaana uu sababa xiriirka xun ee ka dhaxeeya isaga iyo aabihi si taalamida ardada ay isku fasalka yihiin waa ay ka maadaystaan laakiin caruusada uu soo iibsaday ayaa ka difaacaysa kuna kalifaysa inuu qof kasta oo xumeeyo uu dilo. waxaana sheekada filimkiinu ku bilaamaysaa Jay oo iibsanaya caruusadan oo lagu magacaabay Jake waxa uuna doonayaa inuu kala gooyo oo uu ku nashqadeeyo caruusado kale oo uu nashqadeynayay laakiin aabihii oo lagu magacaabo Lucas waxa uu ahaa mid arrinkaasi ka soo horjeeda una arkaya inuu waqtiga ku luminayo. maalin maalmaha ka mid ah ayaa wax yimi guriga Lucas walaalkii oo lagu magacaabo Logan iyo qoyskiisa si ay ula casheeyaan qoyska Lucas. waxa uuna ka sheekaynayaa inuu inankiisa Junior uu yahay orodyahan caan ah aadna looga qadariyay iskuulka isagoo ku jeesjeesaya Jay kuna leh waxaad waqtigaaga ku khasaarisaa adiga oo ku ciyaaraya caruusado bilaa macniya. waxaana hadalkaasi ka xanaaqay Lucas isaga oo dhulka ku tuuray koob kana codsaday inay joojiyaan hadalka. wixii intaasi ka dambeeyay xaaskii Logan ayaa qolka Jay qabatay iyadoo iska dhigaysa inay soo daawanayso caruusadaha uu sameeyay Jay laakiinse waxa soo garaacay qof kale oo aan saygeeda ahayn. waxay dareentay saqadh se marka ay eegto waxay arkaysaa caruusada Jake. marka ay tagaan Logan iyo qoyskiisa waxa uu Lucas bilaabayaa inuu burburiyo caruusadihii Jay. Jayna waa uu awoodi waayay inuu ka celiyo waxa uuna miciinsaday oohin. in yar kadib waxa uu ku kaadsoomay marka uu arkay caruusadii Jake oo ku jirta sariirta hoosteeda oo aanay wax dhibaato ahi gaadhin. isla subaxii waxa uu Jay bilaabay inuu internetka ka baadho caruusadan waxa uuna la yaabay oo amakaa ku noqotay marka uu arkay in caruusadan uu qiimaheedu gaadhayo $1,500. waxa uuna u qaatay iskuulka isaga oo ka baqaya inuu aabihii ka dhibaateeyo. Jay maaha ardayaal looga jecel yahay iskuulka waxaanay ardaydu iskuulka u yaqaanaan inuu yahay doonqon. marka uu iskuulka soo gaadhay waxa uu la kulmay naadirkii Junior iyo saaxiibadii Lexi. marka ay Lexi weydiisay waxa uu iskuulka kala soo doonay caruusada waxa uu u sheegay inuu iibinayo oo uu ka baqay inuu aabihii ka tuuro. waxayna iska dhigtay mid ka heshay caruusada waxayna ka qaaday caruusadii sawir iyo Jayba. markii ay soo galeen iskuulka waxay macallimadii u dhiibtay raax iyadoo ku tidhi qalliin ku soo sameeya laakiin Jay muu awoodin inuu arrinkaasi sameeyo waxa uuna ku dhawaaday inuu matago. marka uu soo jeestay waxa uu arkay jidhkii raha oo la jarjaray wuuna la yaabay. waxa uuna macallimadii ku yidhi anigu sidan umaan galin raha. inta uu macallimadii ku sii jeeday ayaa waxa saaxiibadii loo soo diray fariin dhammaantood waxaanay bilaabeen inay ku qoslaan Jay maxaa yeelay waxay Lexi faafisay sawiradii ay ka qaaday Jay iyo caruusadii iyadoo weliba ku jeesjeesaysa. arrinkaana aad ayaa uga xanaaqay Jay isagoo caruusadii u dhiibay macallimadiisii kuna yidhi hay inta aan iibinayo. waxaanay macallimadu ka dalbatay Lexi inay galaaska ku hadho waxaanay ku tidhi ka raaligeli waxaad ku samaysay Jay laakiin waa ay ka diiday iyadoo weliba si xun ula dhaqmaysa. waxaanay macallimadii doontay maamulihii iyadoo ku tidhi ku jir galaaska. waxay Lexi maqashay qosol cabsi leh waxaanay ku aragtay Jake oo yaalla albaabka soona fiirinaya. waxa soo galay galaaska macallinkii iyo maamulihii waxaanay Lexi bilowday inay meesha iskaga cararto iyadoo cabsanaysa. waxay macallimadii ku tidhi waan ka masaxayaa sawirada Jay waxaanay macallimadii ku xidhay Jake qasnadeeda. waxa habeenkii Jay loo soo diray fariin iyadoo ka dalbatay inuu numbarkiisa siiyo. marka uu siiyo taleefankiisa waa ay iswaraysanayaan
isaga oo ka waraysanaya caruusadda kuna odhanaya wax dhiba miyay ku gaadhsiisay iska ilaali caruusaddan una raaciye eeg bayteriyadeeda. marka uu internetka ka baadhay Jay waxa uu ka helay inay caruusaddani geysatay dilal naxdin leh. subaxnimadii waxa uu ku kaadsoomay aabihii oo haya caruusaddii isaga oo ku leh waxaan ka soo helay suuliga waana uu ka soo qaatay isaga oo eegaya bayteriyadeeda arkayana inay maran yihiin. waxa uuna go'aansadayaa inuu tuuro caruusaddan. waxa uu go'aansaday inuu soo aado bandhig uu iskuulka leeyahay waxaana Lexi bilowday inay Jay ku afdhexlagaadayso xafladda. waxa uu ku kaadsoomay qof ka mid ah daawadayaasha oo u yeedhaya laakiin marka uu Jay dib eegay waxa uu arkay Jake oo daba fadhiya isagoo weliba hadlaya. laakiin Jake waxa uu dhegta ugu sheegay inuu aado masraxa waana uu aaday. hase ahaatee waxa uu Jake bilaabayaa inuu jeebkiisa ka soo saaro moobilkeedii isagoo odhanaya waxaan moobilkeeda ka helay sawirro badan oo uu leeyahay Junior iyo sawirro kale oo uu leeyahay Oliver. waxa uuna intaasi ku daray inay dad badan leeyihiin siro isagoo weydiinaya xaaska Logan isaga oo ku kashifay xogtii moobilka Lexi dadka hortooda. waxaanay dadkii bilaabeen inay ku qosqoslaan waxayna Lexi ka qaadatay moobilkeedii iyadoo iskaga carartay masraxii markii ay u adkaysan weyday jees-jeeska dadka. waxaana caruusadda ka heshay Lexi walaasheed ka yar oo lagu magacaabo Carolina. marka ay ka soo noqdeen guriga waxa uu bilaabay aabihii inuu cabo khamri isagoo ka xanaaqay waxa uu sameeyay wiilkiisii weliba dadka hortooda. dadkuna waxa ay u haysteen qofkii hadlayay inuu yahay Jay. waxa uuna u sheegay in laga soo eriyay iskuulkii laakiin marka uu Jay isku dayay inuu isdifaaco waa uu dhirbaaxay aabihii. waxa uuna ka qaaday caruusaddii isagoo ku amray inuu qabto qolkiisa. marka uu ka tago waxa uu Lucas arkayaa quraaradii khamriga uu ka cabayay oo maran waxaana ka tegaysa korontada. marka uu Lucas isku dayay inuu dib u soo shido waxa uu ku kaadsoomay Jake oo hortaagan. waxa uuna soo matagayaa Jake khamrigii uu ka cabay quraaradda isaga oo gaarsiiyay xadhka koronto. halkaasna waxa ku karantoobaya Lucas isaga oo dhimanaya. marka uu Jay soo dego waxa uu arkayaa aabihii oo gubtay waxa uuna bilaabayaa inuu ooyo. dhanka kale dacalkiisa waxa ka qoslayay Jake xasbunallah. waxaana soo gaadhay meesha booliiska iyagoo waraysanaya Jay waxayna weydiinayaan su'aalo fara badan laakiin adeerkii Logan ayaa yimi isaga oo kafaalo qaaday si uu ula noolaado. markii lagu soo dhaweynayay guriga adeerkii in adeerkii Junior kumuu faraxsanayn. xaaska adeerkii ayaa keentay qolkii uu degi lahaa waxayna weydiisay waxa uu ka waday markii uu hadal hayay sirteeda. waxa uuna ku yidhi waxaan doonayay inaan dadka ka qosliyo oo kaliya. waxa uuna Jay bilaabay inuu la hadlo Jake. waxa uuna ku kaadsoomay marka uu arkay Jake oo dhaqdhaqaaqaya hadlayana. waxa uuna ku eedeeyay dilkii aabihii. waxa uuna u sheegay in uu mutaysto in uu dhinto maxaa yeelay waxa uu la dhaqmi jiray si xun. waari waa rumaysta waar wuxuu naanaabsanaa. waxaynu arkaynaa fiidiyoo qadiimiya waxaana ka soo muuqanaya gabadh waxaanay hor fadhidaa muraayad. gabadhaasna waxa u imaanaya wiil yar. wiilkaas yarina waa Jake. alla maxay khiyaal inaga dhaadhixiyeen oo maxaa caruusada u bedelay. halkaas ayaa ay ku soo dhammaanaysaa xalqadii koowaad. la soco xalqada xigta. waxa laga yaabaa inay waqti xaadirkan ku jirto channelka waxaanay ka soo muuqanaysaa hortaada ee taabo oo soo daawo. waxa laga yaabaa qaar badan oo idinka mid inay ku khalkhalaan fiidiyowgan ee wuxuu waa taxane la soco qaybaha xiga.